hogaamiyaha dib u xoreynta jamhadda SAC Cabdirashiid Xuseen Cali oo dhawaan looga dhawaaqay Buuhoodle ayaa wareysi dheer oo bixiyay waxa uu ka hadlay sababta haatan keentay in dib loo asaaso jamhadda SAC waxa uu soo hadal qaaday qorshaha jamhaddan u degsan dhinaca kale waxa uu si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo dhawaan warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa dhinaca kale waxaan wax ka weydiiyay xiriirka ka dhaxeeya Puntland iyo jamhadda SAC wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya ayuu bixiyay hogaamiyaha SAC waana kan wareysiga oo dhameystiran sida aan wada ognahay jabhadani xilligan horta lama asaasin xilligan ka horeeyay ama xilliyo aad u fog bay jabhadani soo shaqeynaysay waxa weeye maaragtay hagardaamooyin kaga yimid maamulka SNM iyo dabanadii ay u qooleen bay maaragtay iyo dib u dhacyo ku yimid awgeed bay jabhadani waxa weeye maaragtay hawlaheedii iyo mas'uuliyaddii saarneed ay u gabeen sidaa darteed annagu waxaa la oran karaa jabhadani waxa weeye maaragtay anagu waxa weeye waxa la oran karaa dib u cusboonaysiin ama waxa weeye inaanu boorkii ka jafnay oo aanu dib uga shaqaysiinay baa la dhihi karaa jabhad hadda cusub maaha waa jabhad waxa weeye maaragtay dibindaabiyooyinkii aanu soo sheegnay iyo lugooyooyinkii loo geystay waxa weeye inay ka soo kabsanaysa haddeer baa la tilmaami karaa marka taasi saasaanu leenahay jabhad cusub maaha waa jabhad gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay lahaayeen dibna boorka looga jafay Cabdirashiid Xuseen Cali way adag tahay in la sameeyo jamhadan haysan dhaqaalo ciidan meel aan ku tirsanayn xageed ka soo galaa dhaqaalaha iyo ciidanka iyo tababarka siiso iyadii maalgeliyay dadka u sheegay mudane wariye sida aad og tahay dadka ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa weeye guud ahaan dal iyo gudaba waa dad hodana waxa weeye kana soo horjeeda waxa weeye gumaysiga iyo waxa weeye maaragtay jabhadda SNM ee ku haysa gumaadka dadka SSC marka waxa la dhihi karaa waxa weeye maaragtay jecelna waxa weeye xornimada iyo diidana waxa weeye maaragtay gumaysiga iyo wixii la mida dadku waxa weeye ayaga waxa weeye waxay la garab taagan yihiin dal iyo dibadba guud ahaan waxa weeye maal guud ahaan waxa weeye qadiyadan waxa weeye waa dadkii maaragtay nagu dhiirigeliyay guud ahaan in waxa weeye maaragtay dib loo maaragtay cusboonaysiyo loogana shaqaysiiyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in waxa weeye dalka inta maqan dib loo xoreeyo waxa weeye maaragtay guud ahaan intaas aanu kaga jawaabay maxaa la idinku aamin karaya waxa ugu in horay Soomaal dadkani ay sameysteen maamulo hore khaatimo kale waqtii Soomaaliland bay ku dambeysay waxa la gashay SSC oo kale xaga toosiyay Salmaan Ciise Axmed Taar Soomaaliland buu wada galay hadda wasiir buukan uu la heshiiyay oo mid walba oo mas'uuliyiin oo dadkan soo mara ugu dambeyn Soomaaliland bay ku aamin karaan adiga Cabdirashiid ma laga yaabaa dadkan intaad xil ku raashato aad ka cisho oo dagaal dhaco dhimasho dhacdo in Soomaaliland dalbarka maalin lagu arko adoo jooga waxyaabaha aan kaga duwanahay waxa kamid ah waxa weeye maaragtay raggii kolley maaragtay inaga horeeyay ama ragga aad magacawday khayaamooyinkii ay ku dhaceen iyo dabanadii ay ku dhaceen iyo waxa weeye maaragtay wixii ay khaladaadkii ay ku dhaceen inaanu fahansanahay waxaanu kala maaragtay kaga duwanahay inaanu ka gubanay waxa weeye khiyaamadii ay sameeyeen iyo dadkii iyo dalkii ay iibsadeen ama dadkii ay dhiigooda iibsadeen waxyaabo badan baanu kaga duwanahay Cabdirashiid waxa jirta in Soomaaliland dagaal bad dadka la galay dhimasho dhacday dhiig badan baa daatay dadkii dagaalba ka soo daalay waxaan kala ognahay in Soomaaliland gobolka Cayn deegaan hoos yimaada maleeshiyada Soomaaliland taagsan ciidamada taagsan u joogaan sida Bayaal oo kale Caraweyn oo kale Gocon Dhaal oo kale Buuhoodle oo kale Soomaaliland ciidamo ay ka qoratay ay joogaan idina Soomaaliland bala dagaalantiin xal sidee u noqon kartaa oo aad caqabadaha hor taagan aad ugu gudbi kartaan oo ciidamadaas moo galin Soomaaliland loogu duulo halkan oo uma diyaarsan idina dagaal baad jamhadda dagaal bay idin xoreen baa wada marka miyaa laga qabsay qaban isku dhacdhaco qaabkeeda arrinta wajahsan arrintaasi way iska fududahay nimanka aad soo sheegtay deegaanada ku sugan meelo kamida waxay ku sugan yihiin deegaanada aad sheegtay iyo kuwa kale way ku sugan yihiin waxa weeye horta marka hore fariintayadu waxa weeye waanu gaarsiinaynaa horena waanu gaarsiinay waxaanu gaarsiinaynaa waxa weeye maaragtay inaanu ugu baaqayno
inay waxa weeye maaragtay dadkooda iyo dalkooda inaysan iibsan oo shilimaad yar aysan dhaafsiisan waxa weeye maaragtay in badan oo kamid ahna waxa weeye maaragtay waanu wada hadalnay meelo fiicanna waxa weeye waan isla gaarnay tusaale ahaan marka la soo qaato waxa aad sheegayso maleeshiyaadka aad hadda tilmaamayso dhan ma waxa weeye madad shakhsiyaad oo qowleysata ah oo waxa weeye shakhsiyaad oo aanu garanayno mase waxa weeye dhalinyarada la khalday waxa weeye maaragtay shilimaadka iyo waxa weeye waxa ayaguba nimanka cadawga ay ka baahan yihiin ay ku bixinayaan goboladooda ay ka baahan yihiin oo ka dayacan yihiin ay ku bixinayaan guud ahaan dadka afraadda ah ee farakutiriska ah ee haddaba inoo diiwaan gashan ayagu waxa weeye maaragtay waa qayb waxa weeye guud ahaan beelaha goboladan waxa weeye lagu maaragtay marin habaabiyey dhalinyaradoodii in ka mid a haba yaraatee waxa weeye meel wanaagsan bay waxa weeye maaragtay inoo maraysaa xaaladuhu qaybo ka mid ahna waxa weeye waxaaba inoo suurto gashay inay qadiyadani ka qayb qaataan oo hadda xeryaha ciidamada ee waxa weeye maaragtay ciidamada SSC ee dib u xiraynta gobolada Soolsana iyo Cayn ay hadda ku sugan yihiin in badan oo kamid ahna xeryaha ay joogaan baanu kaga warhaynaa waxaanu leenahay nimanka cadawga ee waxa weeye maaragtay dal iyo dad aysan lahayn duulaanka ku ah waxa weeye wax allaala wax aad ku bixisaan ama fikir ama dhaqaalo waxa weeye maaragtay waxba yaraatay idin qabanaysaa inaysan jirin waxaaba dhici karta maaragtay xeryaha ay dhaqaalaha ku bixiyaan in badan oo kamid ah inaan anagu uga faradhuudhuubanahay waxa weeye raggan aad sheegaysana waa dad dadkayna leh oo walaalahayaga oo ehelkayaga waxa weeye maaragtay meelo badan oo isla marnay hadeerna waxa weeye meel wanaagsan bay inoo maraysaa midda kale aan tilmaamaya waxa weeye dadka shakhsiyaadka ee waxa weeye maaragtay khaldaya dhalinyarada khaldaya ee inoo tirsan ee farakutiriska waxa weeye maaragtay ma hor istaagi karaan waxa weeye maaragtay gobolada maqan inaan cadow ka saarno ma hor istaagi karaan waa bil xaqiiq weeye waxa weeye kuwa hadda jooga deegaanadeena jooga iyo kuwa ka maqan ee Hargeysa ku sugan intaba ma hor istaagi karaan bil xaqiiqdi weeye in runta la soo sheegaa wanaagsan dhawaan waxaad tababar soo xidheen ciidamo ka tirsan maamulkaaga Soomaaliland way ka hadashay wasiirka hawlaha guud iyo xildhibaan Maxamed Shaac Booriso ka soo jeeda halkan baa deegaanka Maadhaxadeena uma ogolaan in uu howlo dagaal dib loogu taas waxaanu kaga jawaabaynaa dadka kolley shakhsiyaadka maaragtay guryaha reeraha leeyihiin fadhiya kolley hadeer wax badan aan ka oranaynaa kolley ma jirto dhibaatada iyo fidnada ka taagan goboladani waxa weeye maaragtay qaybta koobaad bay kaga jiraan waxa weeye maaragtay deegaan aysan maaragtay aysan waxba ka ahayn waxa weeye aysan joogin waxa weeye maaragtay inay si maaragtay muhbala ama malaawala uga hadlaan oo ay waxba aysan taladeeda ku lahayn waxa weeye maaragtay kullayda maaragtay waa wax meesha ku jira inay ayagu yimaadaan qoys iyo qabiil iyo waxa weeye reer inay deegaanada iyo buwada ku yimaadaan waan aragnaa oo dadku waa beelo weey laakiin Cabdirashiid daashka su'aasha yar ku darsado jamhadu deegaanada kale ee gobolka Soolsana Cayn maxay ku qasaysan goboladu horta guud ahaan goboladu jabhadu waxa weeye maaragtay way ku dhantahay haday Sanaag noqoto iyo haday Sool noqoto iyo haday Cayn noqoto xiriirka bulshooyintana waxa weeye maaragtay aad buu wanaagsan yahay waxana waxa weeye maaragtay dad gaar ah ama dad ashqaas ah waxay wataan maaha waa guud ahaan waa wax bulshada ka soo baxay odayaasha haday noqoto cuqaasha haday noqoto isimada haday noqoto siyaasiyiinta haday noqoto bulshooyinta haday noqoto waxa weeye maaragtay guud ahaan waa wax umadu waxa weeye ay u dhantahay annagu waxa weeye maaragtay in naloo wakiishay oo qadiyadan hoggaankeedii iyo in naloo wakiishay mooyaane qadiyadan bulshooyinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku dhaqan baa waxa weeye maaragtay ku midaysan waxa weeye maaragtay degmo kasta iyo gobol kastaana waxa weeye jabhadu way gaarsiisan tahay ama ciidan ahaan ama waxa weeye ka wakiil ahaan maaragtay inay ku dhantahay baan maaragtay tilmaamaynaa hadii Ilaahay raado isla su'aasha haddaan su'aal kale oo u dhaweydiiyo Cabdirashiid dad badan waxay leeyihiin jabhadan beel baa u dhan ama dadka beelaha gobolka Cayn beela kamid waxay leeyihiin oo sida sheegayaan reer baa samaystay cid gaar ah samaystay anaka duulaan lagu yahay cid gaar ah iskale maxaa xiliga jabhad keenay dagaal dhaco bal arrimahaas oo dhan maxaad kaga jawaabin maxaad waxyaabaha la ku eedeynay maxaad kaga jawaabin
taas waxaanu kaga jawaabaynaa horta waxaa la yidhi sadar muuqda horta su-aal ka dhan baa leeyahy soomaalida ku maahmaahda waxa weeye guud ahaan waxa weeye maaragtay deegaanada hadda uu ku sugan yahay ciidankan iyo dhismihiisa horta muddo dheer buu soo socday muddadaasi waxa weeye sanawaad baa la oran karaa abaabulkan inuu soo socday waxa weeye maaragtay waxay dadku xoogaal u wada yihiin baa jirta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dadka ku nool ciidankani inuu ku midaysan yahay qadiyada guud ee deegaanka inuu ku midaysan yahay beelo badan oo waxa weeye deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda in ay ragoodii iyo agabkoodii iyo gaadiidkoodiiba uu waxa weeye maaragtay ku dhan yahay waxa weeye cidda oranaysa waxa weeye maaragtay cid gaar ah aasaasatay ama ku dhawaaqday ama waxa weeye maaragtay cid gaar ah ku wajahan yahay taas waxaanu leenahay maaragtay waxa weeye xaqiiqda taala meesha baa burinaysa ciidankani looma aasaasin dadka deegaanka iyo dadka waxa weeye maaragtay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku dhaqan in lagu dhibaateeyo waxa loo aasaasay in ayaga lagu difaaco loo aasaasay marka wali waxaan tilmaamaynaa hadallada kuwa dadka uu ka soo baxay waan garanayna waa kuwa Hargeysa iyo waxa weeye kuwa cadawga u shaqeeya ba hadallada uu ka soo baxay laakiin guud ahaan magaaladan hadda aan ku sugannahay ee Buuhoodle waxa weeye maaragtay waa qadiyad ay ku midaysan tahay cid kasta oo si wanaagsan u fakaraysaana qadiyadani waxa weeye maaragtay taageero buuxda oo naf iyo maal bay u haysaa waxa weeye dadka shakhsiyaadka ee cadawga u shaqeynaya ee xilalka waraabutaaga ama been abuurka inta lagu magacaabay waxa weeye guryaha dadka kala fadhiya waxa weeye hadallada ka soo baxaya way hadalladaasi xaqiiqdana waa cadda Cabdirashiid waxaad isku sheegteen in jamhadda waxoreyn wada ay tahay Puntland oo kale inta Soomaaliland bayna ka soo horjeedayo xiriirkeeda ka dhaxeeya Puntland iyo idinka jamhaddiina muxuu u xiriir ma leeyihiin ama caaro oo kale isna wax xiriir ma leeyahay isna Soomaaliland inuu kaga soo horjeedo way waxa ku jira qodobadaadii cid kasta oo ka soo horjeeda Soomaaliland oo shaqeyn taa waxaanu kaga jawaabaynaa marka hore Puntland waxaanu leenahay horta Puntland marka hore wax xiriir oo hadda la taaban karaa waxaanu leenahay ma jirto guud ahaan waxa weeye maaragtay cid kasta oo qadiyaadkeena ama danaha iyaga gaarka aan soo faragelinayn waxa weeye maaragtay nagana caawinaysa dib u xoreynta gobolada maqan waana soo dhaweynaynaa waxaan kaloo ka tilmaamayaa Puntland waxa weeye horta Puntland waxa weeye waa maamul aan isku doon saaranahay weeye waxa annaga inaga maqan ba ayagana ka maqan caare waxaan u aragnaa maamulka Hargeysa iyo asagu inay isku mid yihiin bisababta waxa weeye wuxuu ka mid yahay jabhadda waxa weeye ama waxa weeye maaragtay nidaamka ku soo duulay goboladayada waxa weeye maaragtay buu ka mid yahay waxaan u aragnaa asaga iyo maamulka SNM inay isku mid yihiin waxa weeye waxay hadda isku hayaan inay tahay masaalix ayaga u gaar ah waxa weeye maaragtay biri ka maalina ay isku mid yihiin maanta ay isku mid yihiin waan u aragnaa federaalka kale martiisa maxaa Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda maamulka Soomaaliland oo in hadal baa socda oo inta badan qadiyadan waa laga hadlaa maxaad ka amisteen su'aasha qadiyadaasi ayaduna waxaanu ka leenahay guud ahaan horta anagu wax Soomaaliland la yiraahdo ma aqoonsanin anagu wax Soomaaliland la yiraahdo ma aqoonsanahay waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo waxa weeye maaragtay waxa ay ku sheegeen Soomaaliland ay ku sheegeen wada hadalladaasi horta guud ahaan wax noqosaya maaha gaar ahaan waxaan oran lahaa madaxda maaragtay isbedelada soconaya guud ahaan waxa weeye inaysan ku kadsoomin goboladan ay waxa weeye maaragtay dadka aan shaqada ku lahayn ama waxa weeye xumaanta iyo dhagarta iyo burburinta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee kala qaybinta ku haya inaysan waxa weeye maaragtay ay waxyaabaha qaar inaysan ku kadsoomin baan tilmaamaynaa waxyaabaha la soo maray waxa kamid ah tusaale ahaan Sheekh Shariif baa madaxweyne soo noqday wuu tagay Xasan Sheekh Maxamuud baa madaxweyne ka noqday dalka isagana wuu tagay farmaajo biri asagana wuu tagayaa waxa weeye waxaanu leenahay guud ahaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya inaysan waxa weeye masiir xun iyo waxa weeye maaragtay wax mustaqbalka ummadan guud ahaan dalkan waxyeello ku ah inaysan waxa weeye qaadan waxyaabahan ay ku sheegayaan wada hadallada Soomaaliya iyo nidaamkan waxa weeye maaragtay Soomaaliland ay ku sheegaan wax noqosay guud ahaan inuu san ahayn marka ayaduna intaas aanu ka dhiilahay jamhaddan aad madaxda ka tahay isha ku eegaya ama gudaha dowladda joogeen maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadka sharafta leh gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku dhaqan ama ku nool waxaan ugu baaqaynaa horta guud ahaan midnimo ugu baaqaynaa waxaan kale ugu baaqaynaa in waxa weeye maaragtay guud ahaan ayagu waxay qabsadaan mooyaan inaysan cid wax u qabanaysa aysan jirin
tusaale ahaan waxa weeye dadkani waxyaabaha soo ragaadiyey guud ahaan waxaa ka mid ah inay waxa weeye cid aan waxa weeye waxba ugu maqnayn ama aan wax tarayn inay maciinsadaan waxaanu leenahay inaad idinku naftiina bixisaan maalkiina bixisaan waxa weeye maaragtay guud ahaan waxyaabaan ugu baaqaynaa ka mid ah waxaan kaloo u tilmaamaynaa dadka ku dhaqan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa weeye dadku inay guud ahaan waxa weeye dib u xiraynta ka qayb qaataan naf iyo maalba tusaale ahaan waxa weeye dalku waxa weeye taakadii ka tagtaa cadawga uu qaata inaysan soo noqonayn laakiin se haddii maanta halgankan soconaya haddii 2 milyan iyo 3 milyan oo qof haday ku dhimato waxa weeye maaragtay dadku dhalanaya waa beer weeye laakiin dhulku beer maaha oo ma tarma ismana dhalo marka waxaanu leenahay dalkiina waxa weeye maaragtay inaad ilaashataan mustaqbalkiina inaad ilaashataan dalkiina waxa weeye inaad dhisataan inaad u soo jeesataan waxaad wax ku noqonaysaan oo sharaf ku yeelanaysaan oo ama dawlad Soomaaliyeed wax kula qaybsan kartaan ama beel caalam aad wax kula qaybsan kartaan ama waxa weeye maaragtay saaxada guud ee siyaasadda gobolka aad kaga mid noqon kartaan waxa weeye inaad dalkiina iyo dadkiina u tashataan oo aad waxa weeye maaragtay idinku wax qabsataan ahaan waxyaabaha cadawga istiraatiijiyadiisa kamid ah waxa kamid ah in beelaha walaalaha ee deegaanka degan inay isku dilaan tusaale ahaan shilkii ka dhacay waxa weeye maaragtay habeen hore magaalada la yiraahdo Horfadhi guud ahaan waxaan ognahay maaragtay dadkeen waxyaabo badan oo soo daashaday baa jira oo ognahay meesha ay ka imaanayaan aanu garanayno dhacdooyinkaas waxa weeye dadkeen inay ku baraarugsanaadaan waxaanu kala ognahay waxa weeye nimanka cadawga ah awood waxa weeye goboladan ay ku saydarayaan inaysan lahayn waxa weeye maaragtay ay ku muquunayaan inaysan lahayn marka inay xeelado isticmaalaan oo waxa weeye maaragtay nidaamkii ahaa qayb iyo xukun waxay dhalaysaa oo ay wadaan in ummadii ehelka ahayd ama deegaanada in la isku dilo iyo dharkayn iyo waxa weeye maaragtay dhumay iyo deegaanadaas dhibaatooyinka ka dhacay waanu garanaynaa iyo meelaha ay ka soo jeedaan hadeer waxa dhacaya waanu garanaynaa meelaha ay ka soo jeedaan marka guud ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dhibaatooyinka ka dhaca waa wax maaragtay cadawga uu soo abaabulay way marka waxaanu leenahay dadku waxa weeye maaragtay maskaxdooda iyo aqligooda ha shaqeeyo hana ku baraarugsanaadaan waxa weeye cadawga waxa weeye maaragtay dabinada uu qowlayo uu doonayo maaragtay inuu awoodda ummadan ama awoodda deegaanadan inuu ku wiiqo sababtoo ah awood uma laha uu ku saydarayo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn awood uma laha waxa weeye ku haysta hadii inuu difaacdo xataa awood uma laha sida aan ognahay bil xaqiiqdi marka awoodiisa wuxuu isugu geenayaa dadka inuu kala qaybiyo isku dilo shilamaad isugu dhiibo marka guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa RSC inay waxa weeye nabadgelyadooda iyo ehelnimadooda iyo guud ahaan waxa weeye dhaxooda waxa ah inay maaragtay wanaag iyo waxa weeye maaragtay ku dhameystaan waxa weeye guud ahaan qadiyadan waxa weeye maanta waxa weeye dib maaragtay boorka looga jafay loo cusboonaysiiyay in la shaqeeyaan waxa weeye waa awoodda kaliya waxa weeye maaragtay dadka sida xun u fakaraya waxa weeye maaragtay ummadan ka hor istaagi karta waa awoodda kaliya ee maanta ku kala nabadgeli kara ciidanku waa ciidankiini hubka iyo agabka waa agabkiini deegaanku waa deegaankiini waxa weeye taageera oo waxa weeye maaragtay si aad idina ugu kala nabad gashaan waxa weeye cadawgana aad isaga celisaan waa inaad si buuxda wada taageertaan